raggaan sawirradooda hor yaalaan qaarkiin isla markii waa garteen mar ayay saaxiib lilaahi ahaayeen saaxiibtinimada waxa ku sii dheereed inay ahaayeen awoodda kaliya ee arrimaha bariga dhexe lagala tashto bariga dhexe Sacuudiga Qatar Jordan Iran Iraq Syria dhulka saas u bax xitaa niga odaga Liibiya Muammar al-Qaddafi waxa lagala tashan jiray dhulka iyo bariga dhexe iyo wixii ku soo kordho ayahe waxay ka ahaayeen laan dheerayaal gebigoodan waa la wada dilay gebigoodan markii laga reebo Bashar al-Assad oo cararay oo qorshaha u ahaa in la dilo laakiin ruush ayaa ninkaas Bashar al-Assad badbaadiyay maanta say waa xabsi guri wuxuu ugu jiraa Moscow dalkiisa kuma soo laaban karo nin hadda waxaa joogo al-Sharaa ninkaas odayga ah aragtaan oo maanta Washington iska tago la soo heshiiyo Mareykanka Syriadii markaas u fiirisid Bashar al-Assadkii waa lagala wareegay waxay noqotay goob aayaheeda Mareykanka uu ka talay iyo Israa'iil way Yasser Arafat sheegada meesha ka bilowday horta muhiim ah Yasser Arafat waa laga yaabaa qarkiin taariikhdiisa inaadin ilowin wuxuu ahaa madaxweynihii Falastiin waxa kaaga daran hadda mid Maxamuud Abbas loo dhaho doqon ah meesha fadhiyo laakiin Yasser Arafat cimaamada ma dhigi jirin cimaamada ninkaas suuq galiyay maanta xitaa dadka Yurub marka aragtay cimaamada waa la xirtaa Yasser Arafat wuxuu saaxiib ilaahi la ahaa Saddam Hussein hadhiin waka isla suuriyihiin Gaddafi Bashar al-Assad hadda la ceersaday iyo ninka odayga ah ee hadda ugu dambeeyay asagana la dilay Ayatollah Ali Khamenei ninka odayga saaxiibo lillahi ay ahaayeen waa isku imaan jireen waa tashin jireen mar Baghdad lagu kulmayaa ciidanka Ciraaq amaanka ee Saddam Hussein amaanka sugayay mar Tehran lagu kulmayaa Khamenei amaanka sugayay mar waxa lagu kulmayaa Syria lagu kulmayaa Dimashq waxa amaanka sugayay ninka odayga Bashar al-Assad dhul mar waxa lagu kulmaayay Tripoli Libya waxa amaanka yaani dalkaas gacanta ku hayay Gaddafi waragi ayaga ahaa 30 sano gudaheeda kulli qorta loo wada jiray Gaddafi waa ku day waalidii Saddam Hussein والدي Ayatollah Ali Khamenei hadda ugu dambeeyay waalidii Hassan Nasrallah ninkan dad laga yaabaa inaysan aqoonin ninkan wuxuu ahaa madaxii dhamaa ee ururkan aad ku awood badan ee siyaasadda militariga ka dhisan ee Hizbullah loo yaqaan asagana September 2024 ku dhaloo jiray ragii waa laga baabi'ay dhulkaas waa la wada dilay iqaar cararay oo hadda ninka Bashar al-Assad ah oo aanan ku soo laaban karin agaas ninka ugu dambeeyay ee aagaas fadhiyay asagana isbuuci hadda la soo dhaafay la dilay Ayatollah Ali Khamenei siyaasadda bariga dhexe iyo taariikhda bariga dhexe waa cajiib ka soo bilaw Jamal Abdel Nasser waagi Israa'iil ay ku duushay dhulka Sinai ay qabsatay dhul Masar ah oo dagaal culus oo ku dhacay waagaas ka soo bilaw dagaalkii dagaalkii toddobada dal ee Carabta Israa'iil ee isqabteen dhulkan taariikhdiisa intaasaba kugu filan ba dadkan la dilay bas kugu filan kii madax soo qaado awood yeesho oo qatar ah oo halis ah Yasser Arafat ha noqdo Gaddafi ha noqdo Hassan Nasrallah ha noqdo Saddam Hussein ha noqdo Bashar al-Assad ha noqdo Ayatollah Ali Khamenei ha noqdo ku dhaloo wada jiray mujida waa taariikh cajiib ah marka dhalinyarada waxaa muhiim ah ina taariikhdan ku fiirsan hadda koor waxa idin sheegay muuqaal nin CIA Mareykanka ah uu hadlay uu dhahay qorshaha waxa way 7 dal in qoorta loo jiro gabigooda sida Syria hadda ay tahay iyo Libya hadda ay tahay oo toos u hoos imaado dalalka shisheeye gaar ahaan Mareykanka iyo Israa'iil in yaani saas laga dhigo waa qorshaha 7 dal maxay ahaayeen طبعا wuxuu ahaa Iraq waxa ku xigay Libya Syria Lebanon oo xaaladeeda maanta ka war heesaan Hassan Nasrallah meesha awood kula la dilay Iran Sudan iyo Soomaaliya Yemen ku sidar marka ragaa culus abu wali wada dilay noona iskars qofku jagadu ka diga waa iska dhinta dil ilaa waxba aan lahayn moogtaa laakiin ragii waa la dilay gurigooda loo galay shakada bariga dhexe daarid in wax ku ogaatid intaas kugu filan walakiin